madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo dhawaan ka badbaaday isku day dil weerarkii ka dhacay meel 200 kiiloomitir u jirta fila Soomaaliya ayaanan ilaa hadda laga helin wax xog ah. laamaha amniga ee dowladuna ma keenin raadreec la xiriira sida loo maleegay isku dayga dil ee madaxweyne xasan sheekh. xarunta fila Soomaaliya amnigeeda waxaa ka mas'uul ka ah guutada la yiraahdo 77 waxaa kaloo jiro ciidan loo yaqaan ilaalada gaarka ee madaxweynaha oo ah kuwa ugu dhow ee mas'uulka ka ah amniga madaxweyne xasan sheekh. iyadoo xaaladaha amniga ay sii adkaanayaan oo jiro gaabis ka muuqda laamaha amniga ee dowladda ayuu madaxweyne xasan sheekh maxamuud ugu dambeyn taliyaha ilaalada gaarka ah waxa uu ka dhigay wiilkiisa Cabdifataax Xasan Sheekh Maxamuud. xilka ayuu dhawaan la wareegay wiilka madaxweynaha. bishii hore waxaa isna taliyaha guutada 77 la wareegay Maslax oo ka mid ah gacan-yareyaasha madaxweynaha sidoo kalena ay yihiin qaraabo. guutada 77 waxa ay mas'uul ka tahay guud ahaan amniga madaxtooyada. dhowr fasiraad ay leedahay inuu madaxweynuhu amnigiisa ku wareejiyo wiilkiisa waxaana ka mid ah 1 cabsi iyo kalsooni darro. inuu madaxweyne xasan sheekh maxamuud amnigiisa ku wareejiyo wiilkiisa waxay xaqiijinaysaa in ay jirto cabsi amni oo cusub ah. sidoo kale waxa ay tilaabadani ku xaqiijinaysaa inuu madaxweynaha ka aamin baxay ciidanka qaranka oona taasi bedelkeeda aamini karo qoyskiisa oo kaliya. wiilka madaxweynaha hore uma ahayn askari waxaana ciidanka lagu soo diray muddo xileedka cusub ee madaxweyne xasan sheekh. 2 isku milanka qoyska iyo xukunka. madaxweyne xasan sheekh maxamuud wuxuu noqday siyaad bare kadib qofkii ugu horeeyay ee dalka madaxweyne ka ah ee qoyskiisa ay si rasmi ugu lug yeeshaan arrimaha dhaqaalaha, maamulka, siyaasadda iyo arrimaha dibadda iyo ciidanka. habdhaqanka xasan sheekh maxamuud waa sida ay falaan madaxdii kala taliska ahaa ee xoogta awoodda. 3 burburinta dariiqa xishood la'aanta. habdhaqanka xukunka ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee ah inay qoyska madaxweynaha ay qaadan karaan qandaraasyo aan loo tartamin, qaban karaan hilal aan mudnaanta dowladnimada lagu bixin, sidoo kalena ay yeelan karaan awood dheeri ah waxa ay dilaysaa dowladnimada casriga ee Soomaaliya. waxayna wax caadi ka dhigaysaa inay sidaan iyo si ka daran ay ugu dhaqmaan dadka xukunka ugu dambeyn doona xasan sheekh maxamuud. 4 isla xisaabtan la'aan. mar walba oo awoodda dowladnimada ku faafaan qoyska madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaa luma isla xisaabtanka. ma jiro hanti dhowre, gudoomiye maxkamadeed ama taliye ciidan oo haatan u bareeri karo inuu tilaabo ka qaado qoyska madaxweynaha haddii ay ku kacaan boob hanti ama ku tagrifal awoodeed. madaxweyne xasan sheekh ayaa horey meel fagaara ugu difaacay inay qoyskiisa qaban karaan hilal oo aan taasi meel ka hor istaagin inuu isaga yahay madaxweynaha Soomaaliya. halka madaxweynaha Kenya William Ruto oo isla su'aashan oo kale la weydiiyay horey u sheegay inaana macquul lahayn inay qoyskiisa ay ku milmaan xukunka intuu isaga joogo xafiiska. wuxuu intaas ku daray William Ruto inay qoyskiisa ku filan tahay inuu isaga ka yahay madaxweynaha Kenya. haddaba sidee u aragtaa adiga?